Bismillahi Rahmani Rahiim. Waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkeeni International Relations Reading Group oo maanta aan u joogno kulankiisii u dambeeyay. Kulamadii hore waxaa la yiraahdaa session kasta xooga ku saarnay theory ama theories ka ugu waaweynaa international relations marka laga soo bilaabo realism, liberalism, constructivism, Marxism. Hadba mid baan si gaar ah u soo saarnay. Haddii aan dib u jalleecno kale realism markaa fiirisid iyaga markaa aad fiiriso kale focus of analysis kooda waxay analyze gareeyaan maxaa la yiraahdaa power struggle oo u dhexeeya wadamada. Marka actorska waxay yihiin actor maxaa la yiraahdaa agency ugu weyn ay noqonayaan. iyagu waxay leeyihiin maxaa la yiraahdaa state of international politics waa anarchy waa fawdo. Booliis oo adduunka oo dhan ka dhexeeya ma jiro, dowlad caalami ah oo global ah ma jirto. Saa daraadeed qof kasta nin walba naftiisa waxaa lagu dhaleeceeyay inay xoog aad u saaraan dagaalka iyo conflictska oo kale. Fursadaha iyo khibradihii la soo arkay oo cooperation iyo nabad ah oo kale aad uma fiiriyaan. Dhanka kale waxaa iyaga la tartamayay liberalism niman la yiraahdo. iyagoo halka nimankan ay power struggle ka focus gareynayaan waxay diiradda saaraan waxa la yiraahdo cooperation ma jiri karaa. Saa daraadeed terms aysan aqoonin dadka realistiga ah ama ay kasoo horjeedaan oo ay tahay collective security oo kale. Realismka national interest baa xoogga leh, halkan collective security waxa la yiraahdo economic interdependence in dhaqaaluhu isku tiirsan yahay. Saa daraadeed meeshii dowladaha kaliya xoogga la saari jiray hadda waxaa arkaysaa waxa la yiraahdo multinational companies, international organizations, UN, EU, IGAD waxaas oo kale in ay qiimo gaar ah yeelanayaan. Intaas kaliya ma aha marka waxaa jira sheekeen aragtiyo badan oo si toos ah si aan toos ahaynba looga soo xiriiriyo international relations oo ugu horeyso waxa la yiraahdo constructivism. iyada ugu weyn constructivism aragti oo more general ah waa marka loo fiiriyo labadii koox. iyaga waxay fiirinayaan waxa la yiraahdo ideas iyo identities aragtiyaha. waxay leeyihiin nidaamka oo siyaasadda caalamka. Realism iyo liberalism say sheegayaan kaliya ma aha sida dadka elite-ka ah ay abuuraan waa constructed ideas waa. Saa daraadeed markii ay leeyihiin realistiga iyo liberalist waa anarchy iyo waxay leeyihiin anarchy waa waxaad adiga ka samayso. saa daraadeed Mareykanka nuclearka ay Faransiiska iyo Ingiriiska haystaan oo kale threat uma arko. halkan North Korea iyo Iran ay haystaan oo kale threat u arko. waa material marka hal material baa laba dhinac kaliya laga arkaya. saa daraadeed anarchy waxaa go'aamiya explanationka adiga sidoo kale qofka identity uu sameynayo kale oo self constructed ah waa qiimo weyn ku leh values iyo norms ka adduunka laga sameeyo. iyaga waxay sameyn karaan cooperation, anarchy iyaga sameyn karaan. waxaa kaloo aan soo marnay saaxiibkeen Maxamed Markay soo sharaxay Marxism oo aad xoog u saaray class struggle. badanaa markii ay labada aragtiyo liberalism iyo realism ay fiirinayeen international politics waxay dhahayeen iyaga waa cooperation hala sameeyo ama maxaa la yiraahdaa power struggle ha jiro. laakiin markii cooperation kala sameynayo oo kale waxay dhahayeen liberalist gaar ahaan win-win situation baa jiraysa. Marx isaga taasoo kasoo horjeeda aragtiyihiisa oo kale waxyaabaha kasoo dhex baxay waxaa kamid ahayd waxa la yiraahdo center periphery theory oo ah haddii aniga iyo dowlad kale ama laba dowladood u dhex maro xiriir oo economic relations ah mar walba qof kale aad ugu tiirsanaanaya. saa daraadeed kuwa lagu tiirsan yahay way xooganaanayaan kuwa ku tiirsan oo wadamada soo koraya ama maxaa la yiraahdaa Afrikaanka ahna markasta iyaga khasaaraha ugu badan baa gaaraya, faa'iidada ugu yarna way develop gareynayaan. aragtiyahaas u weynaa intaan ka soo hadalnay. maanta marka waxaan soo dhaweynaynaa saaxiibkeen Amiin Macruuf oo isna taaban doona qodob ka mid ah qodobada ugu muhiimsan international relations oo ah security. conceptigan security-ga ah abuse-na waa lagu sameeyay. so marka conceptigii security-ga uu isbedelay. wuxuu isku bedelay
intaan ka bixin horta hore contextiga intuusan isbedelin generally 1910 nuclear head oo raashinka kaliya ay leeyihiin baa really asacada haddii la laanjagareeyo inuu Maraykanka gaaro ama inuu Turkiga soo gaaro waxay qaadanaysaa 30 daqiiqo Maraykanka 1800 already oo in la laanjagareeyo diyaar u ah France 290 حاجة perspective عمرك في realism marka laga fiiriyo runtii yani compelling argument oo soo saaray laakiin aniga dhanka kala saaran yani ina yani hell this calculation away from catastrophe oo yani bini aadamka intaan oo hubo uu soo saaro macnaha qatar jiritaankiisa geliya marka haddaan dhahnay macnaha reason iyo waxbaa noo hormara waa in la garoobay macnaha inta in la egaa intaas macnaha dad aqli xun aan nahay taas haddaas meesha soo gudalaysa marka waxaa loo baahanayaa si oo wixii loo yareeyo riskigii in hay-adahan sida IAEA